بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu ku jirnay duruustii mucjizaadkii nabigeena calayhi salaatu wassalaam. xalaqadii hore waxaan ku sheegnay mucjizo keliya oo ahaa qur-aanka kariimka ah. waxaan ku dari lahaa mucjizadaas mucjizooyinka nebiyaalkii hore la siiyey sidii ushii muuse la siiyey iyo saalix xashi la siiyey iyo kuwii kaleba iyo nebi ciise mucjizaadka la siiyey midna hadda lama hayo, laakiin mucjizada nebiga oo qur-aanka kariimka ah waa mid hadda qof walba uu arki karo. haddana waxaan gelaynaa mucjizadii labaad oo nebigeena la siiyey calayhi salaatu wassalaam. taasuna waxay tahay waxaa loo yaqaano al-israa waalmicraaj. al-israa waalmicraaj habeenkii la dheelmay nebiga, kadibna samaawaati alculaa iyo malakuuta samaawaati la geeyey. mucjizadaas waxay ahayd nebiga oo maka jooga calayhi salaatu wassalaam. goor habeena ayaa la kaxeeyey, waxaa la geeyey beytulmaqdis. beytulmaqdis halkaa nebiyaalkiibuu ku tujiyey, kadibna samaawaat alculaa baa loo qaaday ilaa umuuro aada u fara badan oo ay salaadu ugu weyn tahay lagu soo amray nebigeena calayhi salaatu wassalaam, lagu soo farad yeelay. waxyaalo badanna uu ku soo arkay. marka quraysh aad bay ula yaabtay arrintaas. waxay yidhaahdeen nebi maxamed wax kasta oo horeba ka maqalnaye haddana beytulmaqdis oo loo socdo bil loo socdo ayuu wuxuu leeyahay waxaan ku tegay caawa waana soo noqday. abubakar baa dadkii la weydiiyey radia allahu canhu ka mid ahaa oo la yihi walaalkaa maxamed, saaxiibkaa maxamed arrin yaab loo la yimi. marka wuxuu yidhi beytulmaqdis baan tegey, beytulmaqdis baan xalay ka soo noqday. marka bal ka waran arrintaa, waxay rabaan inuu beeniyo. ma iga hubtaan buu yidhi inuu yidhi haa buu yidhi. nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waa yidhi. marka wuxuu yidhi usadiquhu, waan ku rumaynayaa hadduu sheegay. usadiquhu fii khabari samaa, samada warkeeda ayaanba ku rumaynayaa, iska daaya beytulmaqdis. marka in samada ula jeedo kitaabkii waxyiga oo samada ka yimi baan ku rumeeyey, iyo inuu u jeedo samada haddii uu yidhaahdo waa tegey xataa waa rumaynayaa. markaasaa waxaa loo bixiyey abubakar asidiiq, kii rumaynta badnaa. marka mucjizadaas waxay ahayd mucjizo muxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wassalaam ay xujeeyeen oo yidhaahdeen noo sheeg beytulmaqdis albaabadiisa. oo markaas malakul jibriil suu beytulmaqdis musawirkiisii hortiisa keenay, oo markaas uu nebigu calayhi salaatu wassalaam su-aashay ka weydiiyaanba uu ugu jawaabayey. rixladaas waxaa qaaday oo uu fuulay buraaq ba ha la yidhaahdo, oo faraskana ka yar baqladana ka weyn. marka buraaq baa la yidhaahdaa, waana shay ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu talagalay. oran maysid markay ilaahay qudradiisu meesha timaado say ku dhacday arrintaasu. ina allaha calaa kulli shayin qadiir. marka mucjizadaas weynka badan waxayna dhacday sanadkii tobnaad ee bicsada nebiga. marka nebiga lasoo saaray sanadkii tobnaad, waana sanadkii ay dhinteen abu daalib adeerkiis iyo khadiija bintu khuwaylad radia allahu canha, sawjadii hore oo nebiga calayhi salaatu wassalaam. sanadkaasay isla dhinteen. marka sanadkaas kabacdi baa ayaa markaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku manadaystay dheelmiintii la dheelmay nebigeenna iyo muxuu ahaa samaawaadka uu fuulay, kadibna lagu soo farad yeelay 5 salaadood. mucjizada saddexaad oon ka hadlayno waxay tahay mucjizatu inshiqaaqi alqamar. dayaxa oo kala jeexmay. dayaxa oo kala jeexmay arrin waxay ahayd ee qurayshi indhaheeda saartay oo u jeeday, oo jabalka abu qubays labadiisa dhinac
labadii gobol oo muxuu ahaa dayux uu u kala jabay laga arkayay haddana way beeniyeen iyagoo u jeeda xataa dadkii musaafiriinta ahaayoo meelaha soo maray markii la weydiiyey way caddeeyeen marka inshiqaaqu lqamar suuratu lqamar baa ku soo degtay arrintiisa acuudu billahi min ashaytaan arajiim bismi illaahi araxmaani araxiim iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar marka inuu kala dhambalmay annagu hadda ma joogno laakiin waa rumaynaynaa qur-aankii baa le wanshaqa alqamar waxaa iyadana cajiib ah dadkii dayaxa tegey oo Apollo 11 iyo raggii fuulay waxyaalo sira bay soo sheegeen laakiin waa laga qariyaa dadka nin nimankaas ka mid oo BBC-da ka hadlaya ayaa wuxuu yiri waxaanu aragnay dayaxa meel sidii la kabay oo kale dhexdiisa ah baanu aragnay marka inuu kala jabsanaa oo uu kabmay baa la kabay baa nooga muuqatay barnaamijka iyada BBC-da mar dambe lagama sii dayn markii baana la damiyey marka waa mucjizo iyaduna cajiib badan oo nabigeena la siiyey calayhi salaatu wassalaam halkaas ayaan caawa ku gabagabaynaynaa labadaas mucjizo oo cajiibka badan wallahu subxaanahu wa tacaala aclam